waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu qaybtii 21aad soonka iyo axkaamtiisa labada sheekh saxiixooda waxaa ku xusan in ummuna Caisha radiyallaahu canhu Allah ka raali noqdee ay tiri nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa marka ay soo gasho tobanka ugu dambaysa ee ramadaanka qof u taagan salaada iyo xuska Allah ehelkiisana wuxuu toosin jiray salaad saxiixaynka waxaa kaloo ku xusan xadiis ay soo warisay ummuna Caisha radiyallaahu canhu Allah ka raali noqdee waxayna sheegtay in nabiga sallallahu calayhi wasallam uu i'tikaafiyay tobanka ugu dambaysa ee ramadaanka wuxuuna waday ilaa uu Allah ka oofsado kadibna waxaa i'tikaafkii waday xaasaskiisii meesha lagu i'tikaafana waa masjidka dhib ma lahan inaad qofka i'tikaaf ku jiro asxaabtiisii kala sheekaysto khayrka iyo isfaridda macruufka hase yeeshee waa in uusan u dhowaan xaaskiisa Allah wuxuu yiri ha u tagin haweenka idinkoo ku i'tikaafaya masjidka suuratul al-baqara aayadda 187 tobanka habeen ee ugu dambaysa ramadaanka waxaa ku dhex jiro laylatul qadri waxayna axaadiista saxiixda ah tilmaameen in habeenkaasi ay tahay habeenka 21aad 23aad 25aad 27aad ama 29aad Allah wuxuu yiri anagaa dejinay qur'aanka habeenka barakeysan ee laylatul qadriga waxaan ahaanay digayaal waxaan habeenkaasi la kala saaray amar kasta oo xikmadeysan suuratu ad-duqaan aayadda 3 iyo 4 haweenka qadarka ah waa habeenka xukunka wuxuuna ku dhex jiraa tobanka ugu dambaysa ee ramadaanka mana ahan haweenkaasi 15 Shacbaan sida ay dad badan rumaysan yihiin saxiixul buqaari waxaa ku xusan in ummuna Caisha radiyallaahu canhu Allah ka raali noqdee rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaan ku yiri ii sheeg haddii aan ogaado laylatul qadriga waxaan oranayo wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay waxaad dhahdaa Allaahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu cannii yacni Allahayow waxaad tahay cafiye waxaadna jeceshahay cafinta ee cafi beri iyo qaybtii 22aad insha Allah